kuna wanaagsan daawadayaal dunida meel walbood igala socotaan u diyaar garooba daawashada iyo la socodka barnaamij gaara oo aan uga hadli doono marxaladaha showga muqdisho iyo sanadka cusub 2019 sida in badan oo kamida daawadayaasha kala duwan ee ku xiran janalka madasha production ay la socdaan waxaa jira showyo isbarbar yaalla oo lagu qaban doono magaalada muqdisho kuwaas oo ay kala hagayaan laba fanaan oo dalka dibadiisa ka yimid isla markaana qayb ka ah fanaaniinta loogu jecel yahay markii loo eego fanaaniinta casriga ah iyo weliba kuwa heesahoodu ay raacsan yihiin muusigada laga daba dhacay labada fanaan ee laba show oo isdaba yaalla ku qabanaya muqdisho waa rag iyo dumar waxaa la kala yidhaahdaa xasan gantaal iyo farxiya kabayare runtii kalama dhacaan labadan fanaan heesahooduna dadku way jecel yihiin dhalinyarada muqdishona midba midka kale waxa uu leeyahay xasan gantaal iyo farxiya kabayare keeban aadna waa showga na qancin karayo waayahay haddiiba ay baahi sidaasa u qabaan dhalinyarada soomaaliyeed labadaasi fanaan maxaa showga loo miday waayey maxaa keenay showga muqdisho xasan gantaal iyo farxiya kabayare in ay fanaaniinta muqdisho u kala eexdaan waxaan dul istaagi doonaa farqiga labada show iyo sida reer muqdisho u kala xiisaynayaan farxiya kabayare miisaaniyadeedu caadi ma aha heesaheedana dadku way jecel yihiin muuqaal ahaanna waa fanaanad farxaan ah oo dadku ay jecel yihiin balse ma kasban fanaaniintii xidigaha muqdisho oo habeenkaa waxay la safan doonaan xasan gantaal maxaa keenay ilal xog ogaal ah oo ku dhow fanaaniinta muqdisho ayaa ii sheegay in showga xasan gantaal dhalinyarada intooda badani ay geli doonaan maadaama marka koowaad ay joogaan xidigaha muqdisho loogu jecel yahay fanaaniin waxaa jira ruuxa masraxa oo inta badan reer muqdisho ay aad u daawadaan waana sababta keentay showga xasan gantaal inuu noqdo mid kalsooni badan ka hela shacabka halka showga farxiya kabayarena uu hadda muuqan si dhab ah oo hadda la oran karo dhalinyaradu way xiisaynayaan muxuu xasan gantaal kusoo jiitay fanaaniinta xidigaha muqdisho khaasatan nadiire nayrus iyo weliba shaadiye sharaf oo in badan oo ka mida shacabka muqdisho ay jecel yihiin showga xasan gantaal maxay u aadeen maxayse u aadi waayeen showga farxiya kabayare ilal xog ogaala ayaa xaqiijinaya in xasan gantaal dhaqaalaha showga uu u ballan qaaday fanaaniintaasi in ay qaadan doonaan qayb la mid ah qaybtuu isagu qaadanayo halka farxiya kabayare ay u ogoshahay gunooyin yaroo kooban taasna ay keentay in xidigaha muqdisho ay u exdaan xasan gantaal inkastoo hadalkaasi in badan oo ka mida shacabka soomaaliyeed aynan aad u fahmi karaynin haddaan mar kala jilciyo oon u daadego murtidu wax kale ma aha fanaanku markuu show qabanayo xidigaha la heesaya midi wuxuu u ogolaadaa qayb ka mida dhaqaalaha soo gelaya inay sadkooda qaataan halka qayb kalena uu ogolaado gunooyin caadi ah oo in badan oo fanaaniinta ka mid ah aysan jeclaysan waana labada show siyaabaha xidigaha muqdisho ay xasan gantaal ula safteen hadday reer muqdisho xidigihii fanka weeyaane ay barbar istaagaan xasan gantaal oo ay ka dhinac heesaan fanaaniinta loogu jecel yahay muqdisho showga xasan gantaal siduu noqonayaa waa uu ka duwan yahay sawaxanka iyo weliba jadwalkiisa showga kale farxiya kabayare iyaduna cashirkeedu maaha caadi oo in badan oo ka mida shacabkuna way jeclaysan karayaan balse nasiib darrada koowaad xidigaha muqdisho habeenkaasi inkastoo aanan hadda si dhaba u xaqiijin karin suurtagal ma aha in ay soo barbar istaagaan laakiin ilal lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in farxiya kabayare showgeedii ay in badan dadka qabanqaabinayo weeyaane ay geed dheer iyo geed gaaban u fariisanayaan sidii ay u keeni lahayeen xidigaha muqdisho oo xasan gantaal la safan hadday dhacdo in xidigaha muqdisho habeenka farxiya kabayare u yimaadaan iyaduna waxay soo bandhigi doontaa show aan ka liidan xasan gantaal balse ishaydu waxay dul saaran tahay sida ay farxiya u soo jiidan doonto xidigaha muqdisho ee hadda la safan xasan gantaal dhanka kale haddaan u dhigo laba qiimo ayay kala yihiin showga calaashaan tigidyada waxaa ku kala qoran $10 iyo $20 showga farxiya kabayare waa $20 showga xasan gantaalna waa $10 labada qiimo ayaa sidoo kale waxay keenayaan in ay soo kala jiitaan dhalinyarada muqdisho oo intooda badan aanan shaqayn sidoo kalena ayna suurtagal ku noqonaynin in show $20 ah ay galaan iyagoo helaya showgii $10 ahaa dhanka kalena iyagoo xidigaha muqdisho daawanaya waxaa adkaanaysa inay $20 ku galaan meel ay ka maqan yihiin fanaaniin si weyn u gilgila masraxa magaalada muqdisho dhalinyarada intooda badani waxay aad u daawadaan laba gabdhood oo ka mida fanaaniinta muqdisho kuwaana waa qasab in farxiya kabayarana ay jiidato xasan gantaalna uu jiito xidigaha lagu dagaalamayo waa shaadiye sharaf iyo
Wazir Nairuz waana qasab in labadoodu mid kamida uu kalsooni ka helo hadduunan kan kale uga helin way adkaanaysaa in showgaasi uu dhismo dagaal faneedka show faneedka muqdisho 2019 waa xiiso iyo kalgacal ayuu leeyahay ee daawade haddaad ku xiran tahay janalka madasha production waxaan kuu soo gudbi doonaa natiijada dhabta ah showga xasan gantaal iyo farxiye kabayare ee muqdisho waxaana kuu ballan qaadayaa in showgaasi aan u soo bandhigo si degan oo ay cadaalad ku jirto ha iloobin daawade inaad subscribe saarto janalka madasha production inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay showga muqdisho sanadka 2019 oo isku bedelay show dagaal faneed u dhaxeeya xasan gantaal iyo farxiye kabayare intaan barnaamij midka lamida ku kulmi doono waa Cabdullaahi Balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabad gelyo